Nothing can actually prepare you for the event. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan idin hayaa qisay la yaab leh oo ku dhacday nin u dhashay dalka Koonfur Afrika. Ninkani oo lagu magacaabo Rainer Shemf. Qisadiisu waxay aad iyo aad ugu eg tahay qiso ku dhacday Nabiyullah Yuunus alayhi salaam oo uu ka sheekeeyay Quraanku. haddaba haddaan marka hore u guda galno qisada ku dhacday ninkan Koonfur Afrikaanka ah ninkani wuxuu ku takhasusay ama shaqadiisu tahay socdaal ama dalxiis badda gudaheeda ah asaga iyo saaxiibadii waxay ka shaqeeyaan inay badda quusaan oo gudaha u galaan kadibna ay sawiraan kalluunka badda gudaheeda ku jira maalmaha kamid ah ay waxay ka baxeen magaalada loo yaqaan Port Elizabeth ayagoo aaday koonfurta wadankaasi Koonfur Afrika Rainer Shemf wuxuu leeyahay doonta ayaan ka degnay oo ka boodnay kadibna waxaan bilownay inaan badda gudaheeda quusno oo aan soo sawirno malaayada tirada badan ee gudaha badda ku jira daqiiqado gudaheed ayaan waxaan dareemay ayuu leeyahay inaan galay meel mugdi ah oo ciriiri ah oo aan dabiici ahayn wax yar kadib wuxuu dareemay ninkani inuu Laqay xayawaanka loo yaqaan Nibiriga wuxuu leeyahay waxaan dareemay pressure ama cadaadis ayaan waxaan ka dareemay qaybta dambe ee jirkeyga markii uu Laqay Nibiriga sidaa daraadeedna wuxuu dareemay inuu galay caloosh Nibiriga maxaa yeelay ninkani wuxuu aqoon u leeyahay xayawaanaadka badda ku jira iyo Nibiriga iyo waxyaabahaas waa nin 25 sano in ka badan badda ka shaqeynayay marka wuxuu leeyahay sakana kadib bahalkii banaanka ayuu u soo tuuray dadka daraaseeyay xayawaanka Nibiriga loo yaqaan waxay leeyihiin Nibirigu wuxuu awoodaa marka hore inuu afka geliyo dhowr boqol oo qof laakiin hungurigiisa ma mari karo qof bini aadan oo dhameystiran sida daraadeed wax alla wixii uu afka geliyo wixii uu laqo oo hunguriga mara ma ahan waxa kale uu soo tufaaya sidii inay qashin yihiin oo kale marka ninkan amar Ilaahay ayuu ku soo badbaaday sida daraadeedna waxa soo tufay Nibirigii sakana kadib oo banaanka ayuu ku soo dhacay waxa meesha taagnaay oo markaas wax sawirayay groupkii asaga la socday ama dadka asaga la socday oo doonta saarnaa oo awood u yeeshay inay sawiraan daqiiqadii oo banaanka u soo tuuray Nibirigu ninkani oo ka sheekeeyay dhacdadan la yaab kale ayaa wuxuu leeyahay marnaba ma sawiran maalin maalmaha kamid ah 25 sano ee aan ka shaqeynayay badda inaan calool Nibiri ka soo laaban doono haddaba qisadani sidaan hore in kugu sheegay waxay aad ugu eg tahay qiso uu Quraanku ka sheekeeyay oo ku dhacday Nabiyullah Yuunus ibn alayhi salaam sida ay sheegaan dadka culimada taariikhyahanada ah Nabiyullah Yuunus waxa loo diray magaalo lagu magacaabo Naynawa magaaladan waxay ku taalaa dalka Ciraaq gaar ahaan waxay raacsan tahay magaalada Mosul Nabiyullah Yuunus markii loo diray Naynawa oo ay xilliga ku noolaayeen sida Quraanku sheegay dad ka badan 100,000 oo qof ayaa wuxuu bilaabay inuu dadkii diinta ugu yeero muddo markuu waday dacwadii dadkii dhammaantood way diideen inay rumeeyaan Nabiyullah Yuunus alayhi salaam Nabiyullah Yuunus wuu xanaaqay kadibna wuxuu u ballan qaaday in 3 maalmood kadib uu cadaab ku soo degi doono dadkii Naynawa ku noolaa asaguna wuxuu bilaabay inuu iskaga haajiro iskaga tago magaaladii ayada ahayd Quraanku wuxuu leeyahay wa inna Yuunusa lamina al-mursaliin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين إلهي وحو ليه نبي الله يونس وحو كمد أها رسوش أن صدري أما إلهي صدر أيو كمد أها مركا وحناقي كدبنا wuxuu galay oo uu fuulay doon badeecooyin tira badan iyo dad ay saaran yihiin ayuu Nabiyullah Yuunus fuulay asagoo xanaaqsan oo ka carooday dadkii loo soo diray Ilaahay markuu sidoo kale wuxuu leeyahay aayad kale wadannuuni id dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin يعني نبي الله يونس سوى حناقسن أيو دونتاس فولي وإسكاقات تاقي دادكي لو صو ديري علماء وحي يراهدان وكودك داقي ومونا سوغين إلى وقت بدن سيدا دراديد أيا إلهي امتحان كان تسي إلهي وحوليه هاي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
haddaba qisada nabiyullaahi yuunus ku dhacday sida taariikhyadu ka sheekeynaya ama dadka siirada ka hadla ay ka sheekeynayaan nabiyullaahi yuunus markii uu fuulay doontii ayaa waxaa daqiiqada kadib hir ku kacay doontii uu saarnaa dadkii waxay ka baqeen in doontu la rogmato ama ay baddu laqdo sidaa daraaddeed waxay bilaabeen inay badeecooyinkii iyo wixii doonta saarnaa ay halhal u tuuraan doontii weli way degi weysay hirkii weli sidii u socdaa cabsidii weli way jirtaa marka waxay bilaabeen inay yiraahdaan waa inaan dadka qaar ka dejino doonta sida qaar kale u badbaadaan waxay go'aansadeen in la sameeyo wax la yiraahdo qorituur qofkii nasiibkiisu ku soo aado qorituurkaasi in doonta laga tuuro waxay bilaabeen qorituurkii nabiyullaahi yuunus wuxuu ka mid noqday amaba uu noqday qofkii ugu horreeyay ee qorituurka ku dhacay way fiiriyeen waxay yiraahdeen ninkani waa nin wanaagsan waa nin aad iyo aad macnaha u sharaf badan sidaa daraaddeed xoogaa macquul maaha ninkan in laga tuuro bal mar kale aan ku celin qorituurkii mar labaad lagu celiyey waxaa ku soo baxay nabiyullaahi yuunus mar saddexaad ayaa lagu celiyey markii saddexaadna asaga ku soo baxay nabiyullaahi yuunus sidii ayaa doontii looga tuuray ama uu doontii uga booday isla markiiba waxaa laqay xayawaanka loo yaqaan nibiriga nibirigu waa xayawaan aad u weyn oo la sheego inuu yahay xayawaanada ilaahay abuuray ee dunida aan ku noolnahay jooga midka ugu weyn inuu yahay yacni xayawaankaasi wuxuu 100 mar ka weyn yahay maroodiga oo aan naqaano oo dunida ku nool haddaba nabiyullaahi yuunus calayhi salaam markii uu galay calooshii nibiriga oo mugdigii iyo urkii iyo wixii calooshii nibiriga ku jiro dhan uu dhaxbartanka ka galay wuxuu dareemay in ay tahay imtixaan wuxuu dareemay inuu halis u yahay inuu dhinto meeshaas ayuu ilaahay ka soo bariyay asagoo dhahaya allaa ilaaha illaa anta subxaanak innii kuntu min adh-dhaalimiin ilaahay markuu wuxuu leeyahay waxaan ka aqbalnay ducadiisii sidaa daraaddeedna ilaahay ayaa ka soo badbaadiyey marmarka qaar waxaad arkaysaa mucjisooyinkii hore ee qur-aanku ka hadlaya wax u eg inay si caadiya aan u arkayno oo dunida ka dhacayaan marka waa qiso cajiiba aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina waxaan ka codsanayaa in aad subscribe saartid sidoo kale qisadan aad faafisid waxaan idin ballan qaadayaa in qisooyin muhiim ah oo sidan oo kale ama kuwa ka sii fiican inaan idinla wadaago waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu